markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi uu soo gaaray xarunta jaamacadda Hargeysa waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland. inta kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ka qayb galay munaasabad loogu fooladeynayo tufcadii 18aad ee ka aflaxda jaamacadda Hargeysa oo tiradoodu ay dhammayd 1150 arday oo kuliidaha kala duwan ee jaamacadda dhammaystay waxaana madasha madaxweynaha Soomaaliland ku wehelinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada shirgudoonka golaha wakiilada hoggaanka xisbiyada qaranka maayirka caasimadda Hargeysa madax ka socotay jaamacadda Bahardar Ethiopia maamulka macallimiinta iyo waalidiinta ubadkoodu ay maanta qalin jabinayeen gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Dr. Maxamuud Muuse Yuusuf ayaa ku dhawaaqay sharcinimada qalin jabinta 1150 arday mudane madaxweyne ardayda maanta qalin jabinaysa waa 1150 arday kadib markaan buuxisay shuruuduhu laydiinka maahna kadib markii sanadka jaamacadda oo 11 Sebtembar ee bishan fadhiistay oo ay siiyeen natiijooyinka kula qancay anigoo tixraacaya qodobka tirsigiisu yahay فقريسا صنحان جامعنا أنا قلت راعية سنة المسليشنة ولو في سنطمان فقريسا نحيان ثمنان سنة المسليشنة وحاول طيسنتين نبريانا كالنوان طيسنتين وأقول من الجنسين gudoomiyaha guddida sare ee jaamacadda Hargeysa Cabdisamed Cumar Maal gudoomiye ku-xigeenka maamulka ee jaamacadda Bahardar Ethiopia Berehengo Gefa iyo gudoomiyaha shirkadda ganacsi ee Sagalshad Cabdi Yuusuf Ar maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin Injineer Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa iska daba maray guulaha jaamacadda Hargeysa ay ku talaabsatay iyo mustaqbalka shacabka Soomaaliland waxa ay ka filayaan inay tahay jaamacadda ugu wanaagsan marka la eego tayada waxbarashada inay tahay jaamacadda ugu wanaagsan marka la eego nidaamka iyo shuruucda regulatory framework jaamacadda kaliya charter sharciya leh madaxweynuhu saxiixay ugu dambeeyay kii sanadkan dib loo habeeyay jaamacadda Hargeysa noolaato haa u socoto that Bahardar University pledges to offer scholarships to 12 students from Hargeysa University. And of these, 2 will be PhD and the rest in Masters. waxaan doonayaa fursaddan inaan uga faa'iideysto in aan halkan kaga dhawaaqo in qaybta businesska honorka shirkadda ee jaamacadda ay shirkadu qaadanayso oo ay shaqaalaysiin doonto haddii qofkaas qof shaqeeyo uu yahay ama de hami kale oo aan uu shaqeeyo ahayn uu jirana qofka ku soo xigay jaamacaddu ay noo soo gudbiso jaamacadda waxaan iyadana halkan ka offer gareynayaa inanta iyaduna u sareysa inaanu iyadana shaqo siino waxaanu iyadana halkan ka offer gareynaynaa in aanu 5 qof oo internship ah aanu jaamacadda ka qaadano 5 qofna aanu u tababarno bal sidii iyaga laftarkooda ay shaqo u raadsan lahaayeen oo ku hadlaya afka golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waxaan baleenayaa dhammaan ardayda qalin jabisay aniga u rajeynaya mustaqbal wanaagsan oo qurux badan
inay ku mutaan dalkooda hooyo dhexdiisa shaqooyin wanaagsanna ay ku helaan. waxaa sidoo kale aanu doorkayga ka qaadan doonaa jaamacaddu inay dhul weyn oo kale ku yeelato magaalada Hargeysa, waayo jaamacaddani waxay weyn tahay magaca caasimadda. waa farxad weyn bay tahay alxamdulilah inaan jaamacaddan oo asaaskeeda aan ogaa maantana aan ka soo qayb galo tiyo kun iyo in dheeraada ka qalin jabinayaan. waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay jaamacaddan maanta oo muran badan gashay in intii uu qabtay Maxamed Yuusuf ay ka baxday horumarna keentay. waxaa la sameynayaa iyadana dhow insha allahu tacaala free zonekii ilaa 230 company-ba hadda soo dalbaday inay ay degaan international. waxaa la sameeyay shana qaybtii labaad ee dekada oo 600 mitir ah. marka waxaan qoonsaa Berbera dekada ugu waaweyn ee Afrika noqonaysa insha allahu tacaala. maanta waxaan u imi halkan inaan kala qayb galo farxadda ardayda qalin jabinaysa, waalidka, maamulka jaamacadda iyo macallimiinta. waxaana ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo ardaydana waanan u ducaynaya, waanan hambalyaynayaa. jaamacadda iyo maamulkana way ku ammaanan yihiin koritaanka ballaadhan ee ay sameeyeen. waalidkana waxaan leeyahay dhow mahadsantihiin. waxaana rumaysnahay horumarka Somaliland iyo barwaaqadeediba inay ku iman karto waxbarasho. wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Diiriyo Toorno ayaa ka warramay siyaasadda xukuumadda talada haysa ee Somaliland ee lagu kobcinayo waxbarashada bulshada. marka ugu horeysa waxaynu u hambalyeynaa ardayda qalin jabinaysa iyo waalidkooda iyo macallimiintoodii iyo dawladda Somaliland oo iyaduna qaybteeda ka qaadatay. waxaynu leenahay hambaliyo ilaahay waxbarashadiina maanta ka qalin jabinaysaan ha idinka dhigo mid aad ku anfacdaan naftiina iyo diintiina iyo qoyskiina iyo qarankiina. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo u diray dufcaddii 18aad ee ka aflaxday jaamacadda Hargeysa. waxaan hambalyeynayaa ardayda qalin jabinaysa, waalidka ku soo tabcay bahda waxbarashada gaar ahaan jaamacadda Hargeysa iyo madaxdeeda oo dhan. waxaan ku hambalyeynayaa xafladdan qiimaha leh ee ay ku qalin jabinayaan in ka badan 1,000 jaamici oo maanta ku soo kordhay aqoonyahanka Somaliland ee Hamuri. mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa sharaxay waxyaabaha ay Somaliland dhigeed kaga duwan tahay. iyada oo aynu ognahay geeska Afrika qalaasaha ka taagan iyo duufaanada siyaasadeed iyo dagaalada ka jira, ilaahay Somaliland ku manaystay inay nabad iyo horumar iyo jaamacado qalin jabinaya iyo dhismada kaliya iyo mid wado iyo doorashooyin weyn oo si guura uga dabaasheen oo ay ku wadaageen weliba taladii meelaha qaar mucaaradkii iyo muxaafidkii oo Afrika hore looga baray soo dhaweyn oo cusub. ilaahay intaasoo guulad Somaliland iyo maanta inuu joogo ayaa mahadnaq. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa asxaabta mucaaradka ee Somaliland fariin u diray. mucaarid iyo muxaafid oo Somaliland waxaa la soo hayaa anaa garanaya ku dhaawan talada sida Soomaaliya u haysanayso iyo anaa ku dhaawan. dhammaanteedna waxaa la talaagayaa in aanay mararka qaarkood xafiiska siyaasadda ku qaldamin ee weelkeenu ahaado Somaliland mida, Somaliland hore u marta, Somaliland walaala ah oo aan ka kala qoqornay. aad iyo aad u mahadnaqayaa xisbiyada mucaaradka iyo madaxdooda. leeyahay waxaa laga warrabaa inta haysanna inay wanaag muujiso ila markaa wax wanaagsan qabataan dadka arkoo dhan baa laydin raaciya. wax ka fiican waxaan ahay inaad keentaan baan ku dhiirinaynaa dalkana aan wadanisno sidaas mid hore ku gaari kartaa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay weeraha had iyo jeer ka soo yeedha siyaasiyiinta iyo madaxda dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya. ragga jooga xamar ee maalin walba idhaahda baarlamaankii Somaliland baa xamar u dusaya waa nabad lagu yahay.
waa wax aan la qaadan karin waa meel ka dhac horumarkaa Soomaaliya soo in la dhahdo waxaase la yaabay dhalinyarada ka aad iyo aad social media ku dadaata xifaadka gudaheeda mooyaane weli ma dhalinyaro arrinta ka jawaabaysa markaa dhalinyaradu waa dareemay ma iyaga kuwa dhafo taabanaya meeyay bulshada jabay mise waxa kale weyn Faisal baa yidhi jaamac baa yidhi hebel baa u jawaabay haddii intaa ku weysan in meel gaari bay waxaan ka doonayaa dhalinyarada maanta dhalinyarada iyo kuwa hooyada iyo kuwa ka dambeeya in qaranimada marka ay daanto aan noqotaan ciidanka u horeeya ee maskax iyo maal iyo naf u horeeya saas loo soo gabagabadii munaasabaddan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey ardaydii ka aflaxday dufcaddii 18aad ee jaamacadda Hargeysa iyo shakhsiyaadka iyo shirkadaha gacanta weyn u geystay horumarinta jaamacadda Hargeysa. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, xarunta jaamacadda Hargeysa.